وربنا صقلة بلا صقلة بلا صقلة يا تشوق يا تشوق. حاولني يا باشا. التلفون كي وكسر تجيي. توصلت كذا. ما أنا أغان. بل طبعا. والله بالله. توصلت كذا على ذلك. والله ما أغان التلفون كي يبرو ويسحب. وع. صعنا. يا هذا تلص صعدا. وصلوا أنت كنا قنادي. سيلي حافظ هرت بل جوا سوق المشرع. dadka xaafadda Ahmed الماريال وهذا الله يفك سوق له بيقدر يسوي عتاك شرف تيجي أو نقدر عيارته ده وهذا التلفون كي. إلى يوم حي يسوي عيسى هذا الله يفك سوق له. هرت يسبق المشرع هلا وده هذا. كم عرله سي عرله ورقديسه سيروا أركان. ما عود يسورا عليك عرله صدر سنة. بيبي هوش في سعته. عرالة. أنت فوق تقول أنت قطعي. وربل صح هذا عاتا أركا بقرطوي عاتا السعيد. صاحبه ودينا بانر واحدة ورغضة. بقرطوي وكسلام. محاقر انت هاوس. شرب هون. بقرطوي وكسلام. والله. والديه. سيفن مايديك وكسلام ابن رابتي. دمان أصحابته شغلوف وكسلام ولالكي. والديه هي والي سلام دمانتي سوماليين ميلو بدلوا على ذيك جوتين واسكي غير كدي سيدي عادي سنتكي هل مر لكن ما تهول بوربا ودنا غير ولالكي وكسلام ان بدل ما تهوش way badan tahay maanta waxa weeye rag hool buuda nin walaalkeen oo Soomaali ah oo wadani ah oo musharax oo ra'iis fiidho baa maanta waarta oo noolole waxa ma leeyahay ra'iis fiidho fara badan inay ku jiraan shacabweyne badan ra'iis fiidho ku jiraan فيرا بوليس بيلا موتو اساس ra'iis fiidho fara badan inay ku jiraan jeclahay maalin walaagsan dhamaantiin meel walba dunida dacladii ka joogtiin waan salaamina mar kale ما بيحتوى على غرامه اهي واستغلب ولي استغلب كشدتها هي meel bay yara taagreen walaalkii la socodsi dhammaan waxay la socotay boqortooyo likaas waa Ashraf عادي هذا ليس يا أشرف هاي لا صعدة وحاسوك اللي لا صعدة حلبان أحمد كبولة حرب إلى الصومالي إذا أنت يوجد أصحابتي إذا خاصة ضدك فيسبوك وفريندز كوال يقولوا أما أنت ما تفلق يا هذا الواحد اللي هدا اللي سكرب قبل الصومالي ده هرمر من كرته ولا هلك هدا موجسو قرب استكتد فإذا وينسود أوجد الصومالي أنت هذا بدن هذا هو قرب الجوج walaalkeen Axmed Kabol waa musharax u taagan caasimada dalka Sweden Stockholm wuxuu u tartamayaa xildhibaannimo Soomaalida reer Sweden waxa sharaf iyo gobonimani ah ilaa Axmed Kabol codkiisa siisiin waa ina dhigdiin wacdarihi North America dhigeen waa ina midnimo muujisiin waa ina Soomaalnimo muujisiin ninka dhalinyarada ah caaqilka ah wadaniga ah siyaasiga ruucadaaga maanta wuxuu u taagay inuu nihiiliyo maaragtay wixii cusul laga dhiciyo ama maaragtay Soomaalida cadkooda u soo dhiciyo khaasatan reer Stockholm reer Sweden hadaa ku jirtay way maqlisiin ama leeyahay Axmed Kabol waxa leedahay ummadda Soomaaliyeed digriya waa saxaabtada waa salaamaya Allah ku sharfo runtii ilaa saako dhan banaanka taagneed waxaad isku dayday in aad qof kasta oo Soomaaliya ka dhaadhacsiisid inuu codkiisa la baxo dad xataa maaragtay aan ku soo talagelinin oo inay maanta codeeyeen ilaah ma hadda iskale waan gaarayna guusha runtii dadka Soomaaliyeedna waa dad dhiig leh waa dad dadnimo leh waa dad isku hiiliya meel kasto ay joogan xataa kuwa aan joogin oo noo soo hambalyeynaya ama noo soo duceynaya qalbiyada maaragtay wayna dhiirigelinayaan dadka Soomaaliyeed oo Stockholm degan waxaan ka codsanaynaa inay codkaysiiyaan waxaan insha Allah ku shaqayn doonaa codkiina waa in matali doonaa hadii Allah idmo hadii ayaan shaqahaynin ama aan maaragtay musharaxaynan عنصرية لا دجالمين برشة الصومالي activity وحاله سمينيني هذا نادي إن شاء الله إلهي أو قرئن عن كوجولي سنة حلك هذا عن أشرحنا هاي وان شقيت دونا وان قرب استاجد دونا
codkiinana anoo matalaan haddii alla idmo aan shaqay doonaa waxaan ka rajaynaynaa ilaa 9 bisha codkiinu waa muhiim wuxuu ka muhiimsan yahay wax kasta uu ka muhiimsan ilaa 9 bisha codkiina dawladda Sweden u tirsanaa doona waxa u tirsanaa doona aniga oo musharax u tirsanaa doona waxa jira position kala nooc oo dad walaalo u sharaxayeen ayagana u codeeya anigu waxaan u sharaxanahay caasimadda Stockholm waxaan ku jiraa numberka 22 milyan partiyad kamun filmagtii the grana partiyad yaa hubas ali hubay inaad inta timaadaan oo milaynaha Liberaliga oo furan aad tagtaan ilaa 9 bisha doorashadu way socotaa guuleysta ilaahay haydan barakeeyo reer Minnesota waa inaan iska barajaynaa dee absolutely haddii xildhibaanka waa lala hadlay dhammaan reer Stockholm reer Sweden soo wada baxa codkiina muujiya wadannimada muujiya midnimada muujiya Soomaalida kale dunida dacaladeeda ku jirta walaalkiina sidoo kale moraal iyo duca iyo maartay niyad ahaan ku taageera Soomaalida qurbaha joogtada waxaa muddo inay maartay aad iyo aad maartay horumarkooda u soo koraayo hawsha si fiican u socoto yaa qadka loo jiro waan u jeedaa xildhibaano maaragtay inay qadka ku jiraan oo Soomaaliya jooga sida xildhibaan Cabdishakuur Cali Miro oo kaleeto noo soo ducay waxaan u sharaxanahay caasimadda Stockholm aad iyo aad ayaan kugu baahanaa dhiirigelintiina dadnimadiina wadaninimadiina iskarab istaagiina heesta Soomaaliya ugu horeysay oo aan bartay ay waxay isku tiirsanaado heestii ahayd marka aan isku tiirsanaano aan iscaawino dadka reer Stockholm khiyaar hooyooyinka la soo wado aabayaasha la soo wado alla fahamsiyo doorashada qiimaha ay leedahay aan wadajir cunsuriyada uga hortagno ilaa saakordana banaanka taaganahay ilaa 9 bishana waa sii taagnaa doonaa haddii alla idmo waxaan rabnaa masaakiinta Soomaalida ah inaad geysaan meelaha maaragtay go'aamada laga gaaro caasimadda Stockholm waxaa ku xiran wax kasta ha noqoto xuquuqdeena oo dhanka waxbarashada ha noqoto caafimaadka ha noqoto deegaankeena environmentiga aan ku noolnahay ha noqoto ammaanka iyo isdilka carruurta iyo dhalinyarada ha noqoto dhammaan su'aalahaasna waa su'aalo nabad quseeya su'aalahaasna waa inaan u dhiibnaa dad maaragtay naga turjumi kara waxaan aaminsanahay anigoo dhaqankii Soomaalinimadana aqaana dhaqanka Sweden iyo dalkaana joogna wax ku baranay in aan haddii alla idmo aan codkiina ku hadli karno aan gey karno meesha ku habboon guuleysta maantana waxaan isleeyahay maalin uga roon ma ahan in ma jirto in dadka Soomaaliyeed soo wada baxaan على الأقل حزبي الربان هو عديان عنصرية هوده تكتي حزبي قوي وحاط اسمه شرحي إنه نقد حزبي عنصريين تا قبصدي دنمارك هولندا قبصدي runtii waxaana la rabaa dadka Soomaalida ah in ay ka jawaabaan xaafadiina ogaado codaynta sanadkii 2014 aad ayay u hooseysay 2018 waxaa la rabaa isbedel weyn inuu ka dhaco siyaasiyiintu waxay idin qiimeynayaan markii la codeeyo markii codka lala baxo markaad banaanka soo istaagtaan siyaasiyiintu codkiina waa dhageysanayaan ama ha noqoto Soomaaliya xiriirkeena Soomaaliya ha noqoto iyo dawladda Sweden ha noqoto ama midda localka ha noqoto oo politicska gudaha ha noqoto arrintaas intaasba waxay aad iyo aad muhiim u tahay codkiina wadamada dimuqraadiga markii la joogo awoodda waxa iskala shacabka awoodda waxa iskala qofka codka la baxay siyaasiyiintu waa dad answer waa dad maaragtay qaada afkaarta dadka degmada afkaarta dadka guud ahaan dalka Sweden sharciga Sweden qaybtiisa ugu horeysa waxa ku qoran all makt idkor from folket oo macnaheedu tahay awooddu waxay ka timaadaa shacabka ka timaadaa booliiska siyaasiyiinta mindigaadada kala jira waxay ku shaqeynayaan codkiina iyo rabitaankiina waxaad igu geysaan istaasuusad aqalka dawladda hoose ee magaalada Stockholm haddii aad iyo aad umaasantiin hadee fanaankii Soomaaliyeed digriyo cabdi oo runtii nooga yimid dalka Holland saaka ayuu aroortii chiefka naga soo kiciyay banaanka asaga la taagnay marka absolutely guuleysta okaadi maxaa su'aalaha dadka qabaan waa inaan ka jawaabno أحمد الصومالي أنت تقول كوسو وتدعينا أصحاب روح يسوق ريسا ولا لما عن الجوليسو نولو البرجر راد ما ستي دعادينا هذا رئيس تقلم رئيس سويدن عد كيلو عد دير أو ميل دير جاري هنقضه أحمد كمال تاجرهم قروح بلا الله ملجيه ورقتي ورقتي البرخ وراه أنا أقدر صنع فكرة
وايد سلام يا ريستوكم قارها واحد سلام يا صحابة دقريو وما أنتم وقتي قضنا Soomaaliweyn dhubaa ku jirta meesha Soomaaliweyn Soomaaliweyn horta aad u salaama especially inta hadda online ka daawanayso oo waqtigooda noo siisanayna daawadaan waa ku mahadsantihiin midda labaad waxaan rabaa insha Allah kariim inaan si qaas ah ula hadlo Restokom oo muhiim u tahay codkooda inay codeeyaan badanaa Soomaalidu waxay ka dacwootaa dhibaatooyinka uga yimaada wadamada ay ku nool yihiin haday noqoto cunsuriyada haday noqoto booliska haday noqoto dhibaatooyinka xaafadaha ka jira midaas waxa looga hortagi karaa inaad intaad gurigaaga ka soo baxdid aad codka bixisid si aad u hesho qof adiga ku matalo dhibaatada ka caliya haddii aad guryihiina fadhidaan aad codeynin boqolkiiba 90 Soomaalida ku nool qurbaha especially Sweden dad ku nool ma codayaan guryaha wada sanadka socodka u dhaafaa waxaan idin ka codsanaynaa inaad soo baxdaan aad codeysaan si aad u heshaad waxa idin karabtaan oo dhibaatooyinka idinka dadka idin matala dhibaatooyinka ku imaanaya shacabka iyo ilmaha dhalinyarta wada shaqoodan koraya inaad difaaca uga heshaan inaad heshaan dad idinka idin matalo oo dhax fadhiya aqalka dawladda hoose baarlamaanka dhinac kasta ummad shacab Soomaali idin matasho codkiina gudbisa dhibaatadiina gudbisa deegaanka deegaantiin idin kula nool ayaad u baahan tihiin midana waxaan ku gaari karnaa dhamaanteena in la soo baxo hooyooyinka dhalinyarada la codeeyo ayadoo lagu codeynayo Soomaaliweynimo iyo midnimo inana dhamaanteen wax isla qabsano way far kaliya fool ma dhaqdo wadajir ayaana guul ku gaari karnaa waxaan leenahay soo dhawaada Restokom aad iyo aad ayaan kaga baahanahay marka inaad codeysaan walaalkeena muhiimna u tahay waxyaalaha sanadkan faa'iidada aad iyo aad u leedahay kala waxa kamid ah dhalinyarada hadda wada socota oo Soomaaliyeed runtii waa dad midoobay badanaas dadka Soomaaliyeed dad waxay ahayn kala qoqoban laakiin waxaad moodaa si midnimo leh kalkan in loo wada shaqeynayo waa u jeedaano waxa shaqeynaya ilaa hadeertan grouper kala duwan dad kala nooca shaqeynaya dadkaas oo dhan waxay u shaqeynayaan ma ahan in adeernimo ma ahan qabiil ma ahan in maaragtay saaxiibtinimo kaliya laakiin waa dad Soomaalinimo iyo qadiyada maanta dadka reer Stockholm oo qaxootiga ay ku nool yihiin dalkuna ogaada dadkan Soomaaliya waxa wax noqon kara ama wax laga qaban kara markii dadka diasporada ah meelaha ay joogan ay wax ka qabsadaan ayay wax qaban karaan hadii Ilaahay idinkiisa aan ku soo baxno positionada kala duwan ee aan u socono macnaheedu waxay la mid tahay in aan ka shaqeyn karno xiriirka dalkeena iyo dadkan Sweden in aan ka shaqeyn karno dadka sharci la'aanta ah dadka dhibaatada ku haysta meel kasta oo su'aalahooda inaan geey karno xarumaha dawladda inaan geey karno arrintaasna waa arrin aad iyo aad muhiim ah waa arrin anfacaysa qofka Soomaaliya jooga qofka meel kasta jooga iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dalka Sweden jooga إنه حلبانة ورسالة سالة والله Soomaalidu uqud badaysa xildhibaane Allah ku guuleeyo insha Allah ku guuleysanaysa hadii la yiraahdo hadii reer Stockholm especially Ringby Fallenby Hässelby baada faabiyo Teresta iyo Shista ora xaafadii waa kala bartay ugu intaas ba Axmed Kabal oo codeey kartiin Axmed Cabdullaahi Maxamed xildhibaan warqadii la barka Soomaaliyeed farwa weyn wax loo dhigay waa warqadaas dadka Sweden jooga kamarada jeeda محمد عمر أركي أستاذ محمد عمر أستاذ أبو سلامنا سي قيبية وورقداس لبركاسو كيجرا لبية لباتن أحمد عبد الله محمد برتاسو كعدينسا لبية لباتن مليو بارتيا وباسيتي ضد بلا وحليهن قوليس وحلبانة آدم باسيتي مركا هدي حلباكا وانين داليرا هلو عديو رئيس سويدن صاحبكي وحير waxaa cumar wuxuu yiri codkayga Gothenburg aan ka soo bixiyay Moha Films aad u maasatay walaalkii boqortooyo Abdullah Nuur oo kala hadlaya iidlayare gacad soo tag ha iidlayare si loo qaban jiray iidloo bal isoo dalbo si loo wici jiray كيف كاس iidla isoo qabo iidla bring him to come here كل iidla qabo أريد يورب يا أخي أقول في على وجهي ولا حالته ورني أقول لنا عافات كور والله لا ما تسوق هسه وحواي وحكوجر كابيل أذيك دور الشعب علوس وادرن سنة أحمد عبد الله محمد يا قبل وحديلا هلا عضيو
إلا أنا ما الله عذي صوتها لين كيف إحنا وعذين السيملان صوتها أنا وخصوصا أنا بتيجي وصل لنا بيجي وصل قد بيجي صوتها أنا أنت كيف كده والله بنا الرجاليمة إلا وحنا إلا ساكي وربحتك هذا بجيل عليه وساكا سوق عري صح استوقنا وقت صوت بحي سوالده هيجي بيوض قليل رنتي هي لبض بموجين انت دمنا ان شاء الله وحج الله بارت الى ولالكي احمد كول وعديان oo hadda xaadir ku ah oo ila jooga xildhibaanka sawirkiisa oo saaba xildhibaanka ila yara ku salaamay ila wala ku salaamay marka horta xilku waa qaadaysaa mugdiya ku jira saaxiib waan ku salaamay ku jira ana daraan isaga madoobe fiiri هذا بنانك يستقبل عاد نقونا مقدي يقلين كودي لكن إلا عادي هذا ما صنطاي رنتي أديك يا سحاب تقن باش عن مداونيسا قاركود عن دلك تشوجين لكن ما رك عدو ذي يتنمدو ذي يتنمدو موجينيا عادي هذا علينا وحنا رميتاي تشوجا عدك نسي رميتاي رنت ذي تصفيان وحنا ويفان كلية وحنا رنت وين موجين إلا ساكر أصحابته ما ودينيين وعن شيء مثلاً كتب جيب كرنو أدي هذا أنا وما صلتاي أصحابته هذا بريستو عارفين إن دقيقتان وعد شعاتها وشعاتها وما صنتها يا أحمدو أحمد عبد الله يرت يعني حوا عني كل توقف في سويدن كسا كودي وصدق وعاو عليه يا وعليه أنا عبد الله محمد كمال الله عضي إن شاء الله وأنا هلسا أنا ديبو ولا ساق تيبو حوا حقنا كنت عيسنا ماني إننا كلام كبارنا لكن حكم شيء إننا هلسا كورميت وأمريكا أجيد لكن السوقيلي إلو أصحاب بدن أو بارتي رستوغلوم أو بارتي نانيستا وتو جوجان أيك لكن قارب بدن ساكو حيقول هني أبو عضي كربا لكن أنت قعدت قبت الدولة دقيقة حكوري عضينا رجع الله وقال واتني إلا في رفض صح ما إن شاء الله وهيدا الدولة هذا وهيدا إن شاء الله أوكيان وبدل دونا إن شاء الله حوا شيت كله مرضو حلوة نقضه بس بدلها عندي أنا قلت لك ساقول سووا تاجن الموت لكن رئيس سويدن قعدتها سو تاجان رئيس سويدن أنت حاضر كصومالي كله ماشي بار تلفون يقولوا جرتوا أنت هذا بدرس يدعي عيرة غربة سلام الدرا أنت كاركا أنت سلامة وضو حلينا سلام الله أنت دعاء وضو حلينا آمين أنت عدك وضو حلينا فضلا عضية إلا عبد الله نون وعدي دقيقة عبد وعدي ما لا فهم تيم ونون كل واحد عضيني بركة وحواي والله محمد أحمد كولا كوبا قاعدين رئيس توقلم نكان وابد قريسين هاد عدكينا هلسية عدكينا مهم اللي يرى والله تيانو بتيل تلفقة كده ما عملنا انترنت كده ما انت بارتي رئيس سويدن انت وجرتنا بارتي كل رئيس سويدن انا بارتي وباهناهي قعبها سو تاغان سبيشال خاصه انت كنا لستوكهولم بارتي سويدن قعبها سو تاغان رئيس توكهولم بدن هو اركا كبول غوليس ولالكي القرب يري عمليه سوق عملتي هكا عمليه سوق وي كله قلت الصومالي دنكيدي عند وقفرهم ما رئيس توقلم انت فكرك الودر سنيسو عملتي صدوا عملتي نشكا ما شاء الله أصحابته سلامتهين أو سلام أنا أوجس الحلباك كله يسمع أخوي قال محا عمليته ولا سودي وحمل الرئيس سودي ناته
reer Norway maasha Allah digriyo waxa waaye brother maasha Allah ani si fiican ku aqaana absolutely barasho wanaagsan ninkaas Axmed Kaboola asigana maasha Allah dhalinyarada hal abuurka oo kamid yahay ma fahamtay aad iyo aad taageersanahay ninka la yiraahdo Axmed Kaboole maanta wuxuu u tartamaya xildhibaan adigana sida hadda maartay xildhibaanka loo sheegay wuxuu yiri waa dhinac aad u culus reer Norway haddii inta asxaabtaada iyo maartay aad shakhsi u garanaysid ballanku ha ahaado maartay walaalkeena isgarab istaag buuxin u muujiyaan oo maartay codkeeda ay siiyaan waxaa leefka maanta usoo gala reer leef maana hele laakiin ina midnimada iyo Soomaalida jacayl iyo ina maartay Soomaali meel walba dunida dacalada ka joogaan inay guuleystaan oo rabitaankooda ay gaaraan dal iyo dibadda meel ay joogaan marka Soomaalida mar walba Soomaalida waa inay isgarab istaag buuxda maartay ay bixiyaan asxaabtayda dhammaan ku jirta Facebooka friendskayga waa share gareynaya waxaan ka codsanaa dhammaan intay markaan asxaab ila ah inay Axmed Kaboole codkooda ku taageeraan waa nin dhalinyaro maanta boqol hubo inuu bulshada reer Stockholm wax ku soo kordhin doono annagana waxa waa Soomaali hadaan maanta xilligii odayaasha la garab galaa waa laga baxay maanta qofka dhalinyarada in la tijaabiyo waa ma fahamtay guuleyso ma sabtaay waana nin dhalinyaro active ah oo ka muuqda dalka Norway gaar ahaan Oslo ayaa tahay waliba xisbiga Social Democratic oo ka tirsan yahay Cabareeti nin dhalinyarada mustaqbalka dalkii iyo rajada Soomaaliya waaye marka waxaan rajaynaynaa asxaabta dhammaan ay ku jirta qadka oo dhan inta joogta Stockholm in ay codkooda bixiyaan xataa kuwa aniga aan codeynin ay isku dayaan inay codeeyaan oo ay sababtoo codkiina waxa u tirsamaa guud ahaan dalka Sweden siyaasiyiinta danaynaysa haddii aanan codeynin yani dad iska jooga oo kaliya maaragtay iska nool ayaan nahay laakiin markii aan codeyno ayaa awood dadka la arkayaa marka adigana waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala dadka reer Oslo inay ku garab istaagaan haddii aan la idmo salaam hoose Norway guuleyso brother فيصل جواسة ما وحان سلامة يا نور عرالة هي حلمان وكذا دتك بثيين ما وحان سلامة إلى فنان ولالكي بقرطوي لجن AKA وانا نقول نور عرالة بقرطوي وكسلامة إلى نور عرالة وفنان سوماليات ولالكي أنا أمسنا هاي أو إن بدل قرب استاج بوحدة مارت أموجية حلبانكا مارت الله كجيرة دورشة نور عرالو إلى لنسو قشيد أو واحد لقي مارت لقي بقالتنا جعلالي نورو قعدت سوتها وكسوق قبلنا نور عرالة نور عرالة نور عرالة نور عرالة كونكت نور عرالة بقرطوية فلاكي نور عرالة وكسلامة يا لجن سلام قبت يورا مسيتين بقرطوية وكفشو عنا هدي مالتو حواي وصوبنا بحري ولالكي لمارت تاغير بوحدو جرينا رئيس سويدن رئيس سوقلو مالتو وعذروين بيديغين dadku maartay half and half way soo codayeen inta dhimanna maartay waxa ku sugan inay cod ka siiyaan walaalkeena Axmed Kaboole saasar maanta ka lifteen live ku soo galo maartay ya maanta waa isla biisanaya live shaqo absolutely asxaabana salaam door caraale soo dhow liibad salaan gubid waan dareemayaa inaydan ahayn rag u soo fadhiisan kara live hawl mala yacni ama iska hadal waan dareemayaa qorshaha aad ku jirtaan soo muhiim u yahay xataa iyadoon ahayn walaalkeen keliya in ay dadku inay codeeyaan bartaan oo codkooda meesha uu gali iyo faa'iidada uu leeyahay inay ku xisaabtamaan waa hawl aad muhiim ah in lagu baraarujiyo waxaana tiin dadkii mataqaanaa bulshada baraarujin lahaa u sheegi lahaa waxa uu muhiimka mar walba waana ku faraxsanahay inaad ku tallaabsateen وانا aaminsanahay Axmed Kaboole inuu yahay nin macquul ama mas'uul ah dhalinyar ah hadana samayn kara waxyaabo badan oo dhalinyartu maanta ay u baahan tahay ka caawin kara waxyaabo badan oo mataqaan dhalinyartu baahidooda dabooli kara iyadoon ognahay haddaba inuu xafiis weyn uu ku qaabilo dhalinyarta uu jiro oo aniguba aan soo arkay hadda ka horna aan soo duubay oo tusay dhalinyar badanna aan ka wada xidhiidhnay oo ay markii dambe isaga xidhiidheen marka aad baad u mahadsantihiin waxaan leeyahay bulshada reer Stockholm
guud ahaanba bulshada Sweden ama meel kastoo qurbo laga joogo marka ay doorasho jirto odeeya walaaladiin si ay idinkana garabkiina u istaagaan gaar ahaan maanta walaalkeen Axmed Kaboole inay u odeeyaan baan guud ahaan reer Stockholm aan ka codsanaynaa oo aan faraynaa guulayso nur alaale waan kaa qabnaa allah ku barakeeyo الفنان نور عرالة AKA نور عرالة لجن بقرتوي ولكن ما سند وحفي على هذا الشيء أصحابتي أنت بدن سلامها يا رئيس في دفرب ولا وعذيرنا وما سنتين سلامتي من لبيد اللي قاعدنا رك بدن وحركة الشعب تجي الشعب ولكن هذا ما صرت سودو لبا هونستي أبان محمد يحيى ودري الصوماليات الكعسة والله باشا اللي قلنا يهي هذا بات اللايف حوي يا بات اللايف حوي اللي قلنا يا باشا هذا بات حوي اللايف حوي اسكريبستاك بوحلا ولكن الأم الجنة خضف كبات وحكوسها بسيهي والله ولكن أحمد عبد الله محمد كبولة ولكاس إلى الجوجاري إلى سعر حلباكا sawirkiisana halkaas ka muuqda lambarka 22 ku codeeyaysiin kulleeyba xaafadaha Soomaalida ku badan qaasatan Ringby Tenesta Shista Fallenby Hasleby وردلك waa kala bartay Axmedo ool waa kala baratay waxa ku kala bartay oo socotay absolutely dalka aniga ololaha ku jiray iga sii badisay adaa hurdada laga kiciyay wallahi dalka waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waxay ku tusinaysaa walaaltinimada garab istaaga kuwa aan la joogin waad u jeedaa wad inay maaragtay inayna dhageystaan laftirkooda caawin weyn ay kamid tahay asxaab badan aad duco soo qoraysa ilaahay inuu aqbalo oo aan rajaynayna haddii alla idmo waana guulaysanayna waan qabaa midda kale ku faraxsanaada waxaan raadinayna waa 300 cod ma aaminaysi Soomaali weyn Nuur Caraale fanaankii waa dareemi kara Soomaalida marka leef la soo galo intood bal asxaabta qofku yaqaano oo aan ku soo wacan jirin markuu ilaahay amarkiisa leef ku arko markaas uu bixisaa darab ilaa reer sanadkii hal mar iska tuurna kowda reer leef lama lihine bal waxa loo kala kaadiyay Nuur Caraale loo ka jirtay arkayna Soomaalida meesha joogto waxa inay ogeysiinayo أحمد كول وحور ربا ياسر حسين من رئيس ستوكهولم أصحابنا من رئيس ستوكهولم مش بجيسة أحمد كول وحور بهية وسدح بقول عضو كلية وسدح بقول عيب اللي قلت الرئيس ستوكهولم أحمد كول له عض كسوية وعيب يقول در وين الصومالي وين أسوهيتوه رئيس ستوكهولم هل حافظة كسب بحكر سدح بقول سالي مثلا استعاش كلية كبر ستوكهولم كنت قلتين يأري ذا أحمد كول وحور بهية وسدح بقول كلية أنا سدح بقول مركب بيرو حاير ليه وطلب حاف سيرش كبروي مرة داخل لها قال نادوك ديمقراطية البحلبة هيرس الرجارتي وسي هذا أركي سنين أمريكا الصومالي بدبا ما عرفت هوس إلا كور الصومالي بدبا الصوت حدا يقول استي همبلي الله هاي كندا سيدو كلا كل أفريقيا صومالي وحبك هنا أمر هنا أركي الله يسر يا من الصورة أنت ردتك مراجع كل كان وين تشدان سفي عنا نسوي حلقة في خسارة كوتشين أنت شرحت ضمن كل وود هلان أنا نوع رجينا سنة كان هدي الله يتبسط قلنا النقطة واللي صدق بقولنا عليه وبانا هاي من قف من الشير الصومالي كانت أو بوزيشة كانت عنو شرحنا هاي يقول شرحان أو إلى تحتبعي بتشير مركب قف كسب بوزيشن وصعداء ضدك وكلام عضي كلام بوزيشن كلا نوع على كلا صعداء مركب جوشنا وحاسلية وإنه دوده سجال كبشة تيتلك وين بدلنا هدي الله يدمو أغلك ستوكهولم looga taliyo asxaabtu ay ii diraan waxaan ku xiran tahay codkiina sida u faafisaan dadnimadiina ay ku xiran tahay oo wada guuleysanayna qof Soomaali ah oo guul gaar dhamaanteena wada gaarnay hadii aan tago positionka oo aan u socdo hadii aan tago waxaan ku hadlaa luqadayda ma luqadan ku hadlaa waa dadka codkaysiiyay dadka awoodda ay ka timid hadii aniga kaligay aan ahay meelna ma aan gaareen laakiin wada jiraan meel ku gaari karnaa رالي هذا أصحاب ضرر يسوي عسير ماريال وقال يصير وحير هول شقة في جرة أودي أوغلة اللي ما كان الكيس أساسي وتأودي أوغلة وكسرها بينا بقرته ولكن
DJ Shucayb oo ku soo qabanayna walaalkii oo ku soo qabanayna sidoo kale xoogaa maaragtay xildhibaanka hadalka sii watay waxaan soo dhaweynay absolutely ikhyaar runtii aadaan kaga mahad celinaynaa ololihi lagu jira kaasoo waxaan gashanahay fanaanadii la gashan yahay maanta waa iska maalin shaqo live-kan waxaa lagu talagalay waa ololaha doorashada magaalada Stockholm ka dhacaysa oo aan u sharaxanahay walaaluhu maantana waxay u taagan yihiin iyo dhammaan dhalinyaro kale oo shaqaynaysa waxay u taagan yihiin in aan guushaas aan soo hanano waxaan u baahanahay waa 300 oo cod aan ku tagi karo xafiiska dawladda hoose magaalada Stockholm aan ku tagi karo ninka la yiraahdo qaboojiye waan soo qabanaynaa maadaama nin dhalinyaro oo active uu yahay oo dalkan Sweden degan qaboojiye soo gal ilaa waxaad soo qabatayna waa inaad bulshada u sheegtaa waa u sida olala ku jirtay waa shaqaynaysay ilaa hadda xageed gaartay Ahmed بسم الله وين سلاني ما مغلسين فنان كوين وكو سلامي اللي بانك أحمد كبولي وكو سلامي والبدن يا خيار بدنا كفردنا مشان فحرجينا إن شاء الله إن عدكنا كوكو تاغيرنا هذيك أنه حرجينا إن شاء الله هوش الويد مضي إن كسو بحديد وحقوق ذا أمد الصوماليات ودح لونسان برشادة سويدن هنا وصوب معنا قيب قادتيد إن شاء الله يرفع مركا تاسنا هذا مهم نطهي وحن رجينا إن شاء الله الصومالي ذا إنا قارسينو إن عدك الوصيو مانطي إن هل السؤال ربنا سكن ويديو إن أحمد محاو طلق الشيء هديات هشي عدك وبد الصومالي أو شيء أحمد مغلى سؤال وحل ويدي حل بار محاد هدي أد بوليست أمد الصوماليين أد أو خبريس أساسا أفهم يعني أو طلق الشيء عليه وحاول محاد أو خبريس waan mahadsantahay calitaan qaboojiye runtii calitaan waxaan nahay darisaan nahay dhibka uu dareemana waa midka aan dareemayo aniga waxaa igu kallifay inaan sharaxo runtii markii aan arkay dadka Soomaalida oo halkaan degan guud ahaan Sweden waxaan gaaraynaa ilaa 95,000 markii hataa dadka sharciyada weli aan helin lagu daro boqolkan ku cagaynaa istaastiga ugu dambeeyay 2018 aniga waxyaalaha igiyay meesha waxay tahay markii andash ya anika iyo dad cadaan oo markay meesha joogaan iyo qowmiyada kale siyaasiyiinteeda markay meesha fadhiyaan oo laga hadlayo xaafadda Rinkeby iyo teerista laga hadlayo haddii uusan joogin qof Soomaaliya oo dhawaqoodii iyo dadnimadoodii yaqaanay iyo kalsoonidii yaqaanay waxaa la isku dayaa in hoos loo fiiriyo oo su'aal kasta iyo dambi kasta waxay salahayn oo la yiraahdo dadka Soomaalida waa dad aan active ahayn oo xayr qaatayaal sidaas daraadeed أول حافظان حتى وضعت في البرنامج جرد درس كأنه ضاقس كعيال كعيارة ضغط جلبها مرحسن عربي حتى ملها مركا حافظ بروم استنو قداش إذا في السنة سيد لبسكي وكانت علمه وكدوي تاسا واي وحارب لنا كوكب اللون وأنا في لنا ضاقس إذا عروتنا ماجورة ماجا ضد المسلمين دقن أو است أفريقيا ضد عربية الصومالي وبضن وانتظر لفتر كذا حتى خنسير كلا كينا وأنا ضاقسيدا كبدلنا هلب حلال منيجو كبر لقديها وعمهين بصيدو كلام كل هذا حافظة كثيرة والله ليه هاي وحلا كينا ضد بولنديس ضد مع عمارة اللغة السويديش كأقونين أو جامعة وقصة بحجرة حافظها إن كانت نقطة معلمين أيضا اللغة أقونين أي المهن وطن كوب برتاي اللغة كل شيء أي بران أي سويديش كبران تاسونا waxay dib u dhigaysaa waxay tahay horumarka cilmiga iyo aqoonta iyo la qabsiga bulshada carruurta dib u dhigaysaa anigu aan ka shaqeynayo waxay tahay local farowor han noqoto cunsuriyada han noqoto arrimaha Stockholm Stad shaqalaanta han noqoto kriiga amaanka iyo ciyaalka dhalinyarada isdilaaya booliiska markay wiilashan dhinteen oo xaafadda teesta ay ku leeyahay 3 saac ka bacdi markay dhiig baxeen ay wada yimaadeen su'aalahaas waa su'aalaha aniga la doono oo u socdo inaan ka shaqeeyo environment xaafadda ammaankeena shaqo la'aanta iyo sidoo kale horumarinta taageerada iyo meelaha locaalada in la siiyo priority la siiyo culture in la siiyo dhaqanka dadka Soomaalida ah dunta
dhuuntaa waxaa lagu dhegay wax alla wixii feereeniye ahay problemkan haysto waxaa ka mid ah annaga hadda markii feereeni la dhaho ama charity-ga la dhaho masaajidka hoos imaanaya waxaa hoos imaanaya meelaha dadka ku shiraan hoos imaanaysa waxaa hoos imaanaya xaafad arrintaasoo dhan anigu insha allah waxaan ka qabanaa haddii aan doorashada ku guulaysto maasha allah waxaan kuu dhiibaa walaalkay axmed oo asagana ah dhalinyarada xaafadda oo asagana raba inuu laba kelima dhaho waa ku salaamay axmed kaboole iyo digriyow su-aashaydu waxa waaye waa saaxiibka axmed waxaan rabay inaan ku weydiiyo waxa u sharaxantaa horta information badan kama hayo milyo baatiyad kolley inaa u sharaxantahay waa ogahay laakiin jagada u sharaxantahay inay landstick tahay inay baarlamaanka tahay war uma hayo haddii aan ku coday lahayn ma dhinaca baarlamaanka miya nambarka kama wado ma baarlamaanka mase waa landstiga mase waa communaalka annaga milyo baartiya xisbiga milyo baartiyada waxaa u sharaxan laba qof oo soomaaliya waxaa nin la yidhahda mansuur jaamac oo ku jira nambarka 11 ee landstiinka iyo aniga oo u socda kamuunka caasimadda Stockholm oo ku jira 22 labadeenaas ayaa u sharaxan dhankaas ninkaas waa dhanka caafimaadka anuna waxaa dhanka degmada waa dhanka degmada taa adiga aniga degmadaan ahay waxaan ahay Stockholm stad aan ahay ninka la yiraahdo mansuurna waxa way landstiinka waay okay bas waa ku siinayna kala sharaxanahay waa ku siinayna insha Allah adna waxaan ku rajeynaynaa kulay inaad dadaashiino kulay dhalinyarada tensta ringi bi waxyaabo badan laga qabtay u baahan tahay ilaa adiga yaarfa amroodkan la isku dhaa kulay marka adina lekatil kulay soo bilaabay SLB ilaa akaala dadka ku nool oo dhan waa coday karaan dadka miliba waxa sharciyada waa weyn leh waxay u coday karaan dad badan sidoo kale dadka sharciyada yararka ah waxay u coday karaan kamun dad badan dadka deganaa dalka 3 sano dad badan waxay soo qorayaan Stockholm kaliya baa laga coday karaa bas Sweden dadku u sharax markii waxa ka coday kartiin reer Sweden Stockholm degan u baa coday kartiin labada inta soo sharaxdo waxaan ani fiiri dadka aan degan Stockholm waxay ka u coday karaan dadka Soomaalida u shaqeeya haddii tuulada aad degan tahay dad Soomaaliyeed deganeen waxaad u codaysaa xisbiga aan ahayn oo cunsuriyada ahayn ama ahayn social democrat aan noqoto milyan baartiyada aan noqoto center baartiyada aan noqoto axsaabtaas bidixda sababtoo ah hadda taa bidix iyo midiga loo dagaalamaya marka waxaa aad iyo aad muhiim ah in aysan codkiinu qaldamin dada waxay u codaynayeen SD oo ah xisbiga cunsuriga haddaad Stockholm degan tahay xaafadda SLB ilaa xaafadda la yiraahdo akaala waxay u coday karaan أحمد عبد الله محمد أو كتير نمبر كوي لواتن منصور جامع أو كتير كوي طبعا إلا كمون لاند ستيجا مليون باتية سيدو كلاتا باليرا كلا وحش رحيه ريكس داغو شرحيه عدايا تاسونا واميم الله نود قوليو سجال كبش وعارفنا إن لأوجادات الصوماليين دكان مقالة ستوكهولم أول يد اسم يعرفنا بعدايا إن شاء الله صاحب خير نكون جينينا لكتيل إن شاء الله dhalinyaradan waxaan leenahay Axmed Kaboole iyo ninka la yiraahdo Mansuur loo codeeyo insha Allah khayr iyo caafimaad adigana dadaal guri gobolnimo Allah idin barakeeyo sharaf salaan from Shista Galleria team Digriyo iyo dhammaan saxaabta iyo kulli Soomaaliyeed meesha ku jirtay waxaan la maalmahan oo dhan hadii Allah idmo maalmahan waa maalmo shaqo hadii Allah yiraahdo waxa waaye codeeya oo qaybiya fiidiyogeennana meeshan ku reebaynaa haddii alla idin sii share gareeya asxaabtiina Stockholm message-ka ugu dira codeeya waxaan ku jiraa nambarka 22 ee xisbiga milyan baatiyad ama green party sharaf iyo gobonimo shaqada way sii soconaysaa hadda waxaan fadhinaa live-ka waxaan sii aadi doonaa si practical dadka ula kulmi doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin Allah idin barakeeyo dhammaantiin وما ستي دمان أصحابتي إذا قالي خاصة الرئي ستوكهولم هرت سومالوين أنت تبغى سود عين ولا كانوا حلينا قولي قبلنا الله قرب قلب إن شاء الله ونقول سنة أصحابته الرئي ستوكهولم شرفت هلا إلالية من بدأ هلا إلالية أحمد كبول وحاربنا إن شاء الله سهلك استمر روحي كتب بيه إلا واقع سلبريشن كيسي يدبل دقيسي إن شاء الله دول أنا وقرب جوك في ربنا أنا سود وكسر الله منه وأنا سلام مركلة إنه الله أنت نلو جرتو سومالي ميلو بجوكتا هسكو دومناتو من لماذا هلا موجيو قفل بقى ولالكينا أو دولة دعالة كون نول أو ربا إنه هرمر سبايا هلا تاغيرو
oo wadannimada hal la muujiyo yaana qofla maartay leeyahay ahaa iyo tuul hebel ku dhashay gobol ku dhashay Soomaali waa Soomaali kow yaa tahay Soomaali laba yaa tahay Soomaali saddex yaa tahay Soomaali intaas la isku dhaafin marka wali salaam mar kale guuli gobonimo Soomaali maartay Allah barakeeyo mar walba guul u rajeeyaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh